ka shaqayn doonaa biri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf kule adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halhayskaygii ahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la aadayda Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa war ka soo saaray doorashadii xasaasiga ahayd ee xalay ka dhacday magaalada Muqdisho taasi oo uu ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad la doortay. Abiy ayaa hambalyo u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 4 sano ee soo socota hogaamin doona fiilka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayuu yiri Abiy. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inuu si dhow ula shaqeyn doono madaxweynaha cusub ayna iska kaashan doonaan arrimaha ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo danaha gobolka. Waxaan rajeynayaa inaan si dhow u wada shaqeyno danaha guud ee labada dal iyo kuwa gobolka ayuu sii raaciyay. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya ayaa 5 sano ee la soo dhaafay saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay looga adkaaday doorashada kaasi oo helay 110 cod halka Xasan Sheekh uu helay isna ku soo baxay 214 cod. Si kastaba guusha Xasan Sheekh ayaa waxaa si weyn looga soo dhaweeyay guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka. Safiya Maxamed Ibraahim, Safiya Somali, Goobjoog. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog balaaran ma naga siin kartaa? ها moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah. barta aad ka helayso qiimuhuna boqon oo goys maaha. tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambeysay beledkeena looga adeegto. ha ahaato electronic baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo. bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan. qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh. dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya. qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay. Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee Macalin Bimaalow.